سلميني جنة لو بيرتما يا بالخير عدوك صدق كذا بري انتو بلن قادة سوما إلى فقر كابان مرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم لمان أمد الصوماليات ميرول بعد يوكتان. مقعيق محمد عبد محمود. برنامج كان وبرنامج تحنا أو كبح دونا تي في قرن كأسن تي في. waxaan rabaa in aan ummadda Soomaaliyeed u faa'iideeyo bal cuntooyinka waxiin waxaan ku takhasusay nutritionka backgroundkayga waa nutrition dietitian ahay marka waxaan rabaa in aan bal ni faa'iideeyo waxyaabaha ku saabsan cunooyinka cunno ee maxaa ahayd sida ogtiin Ramadaan aan ku jirnaa markii Ramadaan aan noqono bishan waa bil cibaado bil barakeysan waxa aan inta badan ku afurno waxay tahay sambuus bur macsharo waa waxyaabaha soo noqnoqda oo anaga culture noo ah oo inta badan nagu soo noqnoqda ama caado aan u leenahay inkastoo Ramadaanka marka aan ku jirina oo nolosheena iska basic tahay oo aan ku quraacno canjeero ku qadayno bariis baasto ku casheena cambuulo ama hadda waa bil baxnay 2016 wixii ka dambeeyay pizza baranay shawarma waxyaabo badan oo wadankeena ku soo kordhay oo junk food ah marka wadankeena dadkii awal ayagoo xanuunsanaa oo dhiikar iyo cholesterol iyo gas la daala dhici jiray baa hadda waxa moodaa in cirka isku sii shareerto ka sii darnay maadaama junk food wadankeena uu ku soo kordhay culture badan noo yimaadeen wax aad iyo aad u wanaagsan wadankeena uu sii horumar laakiin xagga cuntada waxa muuqda caafimaadkii xogaa inaan gadaal sii socono bal horta sambuus aan u soo noqdo iyo afur maadaama Ramadaan ku jirno sambuus sidiisaba muxuu yahay sambuusku waa ogtihiin waa bur saliid iyo wax yar oo hilib oo la shiilay intaas waa muxuu qabtaa horta sidiisaba wax nutrition factor malaha waa cudur socda xabad sambuus marka cunto caloosha buk waa aragtay glass biya marka cabtid wax tar weyn malaha sambuus waa adduunka waxa ugu xun gaas waa ku dheer yahay maxaa la yiraahdaa ay sheegeen cudur walba ku dheer afur waa ku diidaya maxaan ku bedeli karnaa booska sambuus horta sida caadiga ah sunnada waxaan ku afurnaa timir iyo glass biyo ah waa wax aad iyo aad u wanaagsan marka horeba in lagu afuro biyo iyo afur caloosha sii jilcinayaan waxay u sii sahlayaan cuntada dambe aan gelin doono in marka inoo jilciso oo hore caloosha ay ka gasho meeshii aan hore aan cunto adag uga bilaab lahayn waxa wanaagsan mar walba inaan wax jilicsan ku bilaabo sida soup oo kale way wanaagsan tahay mar walba sambuuska waxa lagu bedeli karaa booskiisa soup yar oo healthy ah maraq soup chicken soup oo cusbada laga daayay waxyaabaha xawaajiga wax caafimaad ay soo kordhinayaan malaha cusba waa ogtiin xanuunada laga qaado cusbada jirka biyaha ku celisaa waxyaabo badan leedahay cudurro badan oo halis leedahay waa faahfaahin doona cusba waxay tahay laakiin waxa wanaagsan in mar walba lagu bedelo yogurt yar maxaa la yiraahdaa ii sheeg sida soobkii hadda aan sheegayo kale in lagu bedelo mar walba markii la afuraayo qacda ugu horeysa intaan salaada la tukan kadibna aan dib loo galo afurkii weynaa wuxuu ku wanaagsan mar walba in lagu bilaabo porridge boorajka oo kale in la cuno meeshii maxaa la yiraahdaa bariis iyo maxaa la yiraahdaa hilibkii ariga ahaa iyo in la cuno porridge yar vegetable yar maxaa la yiraahdaa waa wax light ah qofkii aan dhibaato u geysanaynin maxaa la yiraahdaa uu tagi karo maxaa la yiraahdaa taraawixda uu ku soo tukan karo kadibna uu dib u galo cashooyinkiisa caadiga mar walba waxa wanaagsan qofka in cuntadiisu uu soo yareeyo oo small portion ka dhigo sababtoo waa ogtiin Ramadaan waa bil cibaado dadku waa wada overweight wadankan joogno qof walba wuxuu rabaa weight loss inuu sameeyo qof walba calool ka sheegtaa wadankeena sida ogtiin calool maxaa ahayd calool quruxdaada baabi'inaysa weight inuu ku koro quruxdaada ku baabi'ayso caafimaad darro cudur walba halis u tahay jirkaaga difaaca ka dhimanaya waa ogtiin maxaa la yiraahdaa waxa kale wanaagsan qofka inuu exercise sameeyo inuu sameeyo qofka waxa ku kalifaysaa caafimaadkiisa siyaada maxaa la yiraahdaa ama teedka u furma maxaa la yiraahdaa ay sheegeen waxyaabo badan kale diinta lagu hadli doona cunto waa ka hadli doona waxa ay tahay cunto ayadoo kala baxsan cuntooyinku waa saddex carbohydrate vitamin
protein fat mineral wax walba waa ka hadli doona anigoo mar walba soo qaadan doona item u soo qaadan doona protein maxaa ahayd fat muxuu yahay carbs muxuu yahay maxaa la yiraahdaa vitamins maxay yihiin xageesa laga helaa dadku waa inay ogaadaan xagee laga helaa dad baa u yaqaana baradho inay tahay protein dad baa u yaqaana maxaa la yiraahdaa waxyaabo badan oo protein u yaqaana vitamin u yaqaana sakana vitamin waa in dadku ay fahmaan exactly xagee vitaminka heli karaa qofka waxaa loo baahan inuu ogaado horta cuntada aan cunaay maxay ka kooban tahay maxay iskugu jirtaa sida ogtiin culture-keena hal cunto un baa focus ku saarna ama aan naqana waa carbs sambuusan sheegay waa bad carbs saliidu galay fat maxaa la yiraahdaa bariis baasto waa carbs waa carbohydrate carbs markaan ku leeyahay marka waxyaabahaas oo dhan insha Allah waa ka hadli doonaa halan uga hadli doonaa haddii alla idmo insha Allah marka ramadaankan waxaan rajayn doonaa insha Allah inaad wax badan ka faa'iidi doontaan dabeecadahena bedeli doono ramadaanka markii laga baxo maxaan ka baratay ramadaanka intii lagu jiray 15 dambe maxaa cuntay waa inaad ogaatid horta muxuu yahay cunto waxay tahay kadibna aad isku balance gareysatid exercise-kaaga soo raaci doona waxyaabo badan insha Allah ka hadli doona marka taasaan rabaa maanta inaan idin sheego marka sambuuska sida nii sheega waa wax caafimaad ah oo soo kordhiyo mala dibiriyo calool taag maxaa la yiraahdaa daaca qurun jinimaata dhan wax uu soo kordhina wax tar uu leeyahay male sambuuska waxa kaaga wanaagsan inaad ku bedelatid soup oo maxaa ahayd soup waa maraqaas wuxuu noqon karaa maxaa la yiraahdaa ii sheeg maraq malaay yar inta karsatid biyo yar toon iyo xawaajiga waxa ku darsatid appetizer la caloosha ku sii jilcinaya asaa ka wanaagsan inaad ku bedeshid ama borage waa mishaaridu wax walba noqon kartaa qamadi yar soo shiida kartaa maxaa la yiraahdaa ii sheeg masaga yar soo shiida kartaa waa iska carbski laakiin healthy dhinaca caafimaadka aadaysa absolutely sokorna ku darina sokortana waa ka hadli doonaa sida qofka bini'aadamka jirkiisa u gasho xanuunada laga qaado waxa ay tarto kulli waa ka hadli doonaa sokorta kaliya ma aha tan la cuno sokor badan ay jirto cuntada xitaa sokorta ku badan tahay kulli waan kala hadli doonaa insha Allah laakiin Soomaali Maxamed meel walba aad joogtaan waxaan rabaa mar walba in aad ku foojignaataan in aad ka fikirtaan caafimaadkiin hal caafimaadku waa qaali waa shay muhiim ah sambuuska iyo wax lagu afurayo maaha wax wanaagsan hal laga fogaado insha Allah qaybtan hadda waxaan jeclahay intaan inaan ku soo xiro xalqadeeda dambe oo ku noqon doonaa waan isoo gudbinaa insha Allah afur wanaagsan dhamaan sabalku bishii ay wada sinmeene jannada loo beeratamaya bil khayr addoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka